great Vikramaditya. I call him the Einstein of palmistry. कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Samna Kasta Official. fadlan janaalka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, kambalelkana furo si markasta ay kusoo gaaraan muuqaalada xiisaha badan halkan kusoo gudbino. saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad holan joogto janaalka. waxaan ka codsanayna muuqaalkeena like gareyso, sidoo kalena sii share gareyso. barnaamijkeena maanta waxaa kusoo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Radeshian, waxaana hogaamiye ninka lagu magacaabo Birbaha salka xidigta lagu magacaabo Bujahej ay tirisha koowaad ka tahay. sidoo kale waxaa door muhiim ah ku leh ninka lagu magacaabo Jagapati Babu oo inta badan filmaanta ku jira door xumaana. sidoo kale filimkan haddii aan u guda galno sheekada filimkan, Birbaha waxa uu ku matalayaa nin lagu magacaabo Vikramaditya oo ah nin faalka fiiriye ama faalalowa, halka Bujahej ay ku matalayso gabar xanuunsan oo joogta dhankaas iyo Mareykanka, halka Birbaha loo dirayo si uu gabadhaas marka u soo fiiriyo xanuunka haya ama markaas xanuunkaas inay u dhiman doonto ama inuu xanuunkaas ay ka baabi'i doonto. marka filimka highlightkiisa ugu waaweyn ee markaas loo daawanayo waxay tahay labada qof Bujahej iyo Birbaha xiriirka jacayl dhex mari doona xagee ayuu ku dambeyn doonaa, maadaama ay gabadhan tahay qof xanuunsan halka Birbaha uu ku matalayo fallow. kadib gabadha markuu ogaado xanuunkeeda ayuu ka tegayaa. sidoo kale waxaa loo daawan doonaa inuu usoo laaban doono ama xilligaas inuu ka tegi doono. qolyaha aflaamta ka faalooda gaar ahaan shabakada haddii aan soo qaadano IMDb rating, filimkan waxay ku qiimeysaa filmaanta 10 xidig, halka filimkan ay siisay 6 ku dhawaad 7 xidig ay siisay, halkaas waxaa ka maqan 3 xidigood. taas ay ka dhigan tahay filimkan inay tahay sheekadiisa mid aad u wanaagsan. saas oo ay tahay filimkan waxaa la saaray tiyaatarada 11 Maars 2022 laba asbuuc ka hor, balse filimkan tiyaatarada waa uu ka degay sababo la xiriira in filimka daawadayaasha aysan ka helin. waxaa usu sababa filimkan lacagaha la geliyay oo ah lacaga macquul ahayn, oo ah filim jacayl oo lacag intaa leeg lagu qaadanayo ama lagu maalgashanayo waa wax aad u xun. sidoo kale qolyaha tiyaatarada waxay ka faa'iideystaan awoodda Birbaha, maadaama uu 7 sano ee ugu dambeysay Birbaha uu ahaa aktarka ugu awooda badan dhankaas iyo Telugu. sidoo kale filimkan waxaa noqday filimka ugu khasaaraha badan ee abid ay sameeyaan Hindiya. sidoo kale isagoo filimkan noqday filim lagu kharashkay lacag dhan $32 milyan, taasoo qolyaha tiyaatarada ay filayaan inuu soo xareyn doono ku dhawaad 65 milyan ama 2 jibaar lacagta lagu gatay. taasoo waxay weynay ka faa'iideystaan si horan kugu sheegay awoodda Birbaha, balse taas way ku fashilmeen qolyaha tiyaatarada iskale filimkan. sidoo kale filimkan khasaare lixaad waxaa gaarsiiyay filimka lagu magacaabo The Kashmir Files oo bishan Maars si xad dhaaf loo daawanayay, maadaama uu ka hadlayo filimkan fariin qadiyadeed, maadaama lagu faaninayo Hinduuga xag jirinta ama diinta Hinduuga ee lagu faafinayay, balse muslimiinta inta badan ay ka caroodeen filimkan maadaama muslimiinta Kashmir ee markaas lagu dhibaatayo dhankaas iyo dhulka u dhow Pakistan ay Kashmir lagu magacaabo. filimkaasna waa filimka dhulka la galay filimka Radeshian, maadaama Hinduuga inta badan ay daawanayeen filim Kashmir. sidoo kale filimkan waxaa dhulka la galay filimka lagu magacaabo RR, kaasoo soo baxay Jimcihii hore ee 25 bisha Maarch, kaasoo tiyaatarada inta ugu badan la siiyay filimkaas. saxaabta filimkan waxaa lasoo dhigi doonaa 1 Abriil barta lagu magacaabo Amazon Prime, waxaana si online looga daawanayo bartaas. markaas haddii lagu soo tarjumo afkana Soomaaliya waxaa soo dhigi doonaa gruupka Telegramka ku leenahay Samna Kasta Official. saxaabta halkaas nagala socda waxay fariin noo haysaa wax noo soo dhigi doontaan qaybta commentiga ku leenahay ee channelka. saxaabta waa ku mahadsan tahay haddii aad ka heshay muuqaalka leeg noo saar. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.